maamulka heer deegaan degmada Ceelifeen ayaa xaflad sagootin oo sameeyay badhasaabkii hore gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka heer deegaan degmada Ceelifeen isla markaasina ahayd xaflad maqaamkeedu sareeyo ayaa waxa ka soo qayb galay aqoon-yahan culimo haween iyo saraakiisha ciidanka kala duwan iyo haldool kale oo aad u tiro badan waxaana hadalka iska daba qaatay mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladaasina waxayna carrabaabeen inuu ahaa shakhsi gobolka wax badan u qabtay intuu xilkaasi hayay gaar ahaan nabadgelyada degmada Ceelifeen si hagar la'aan uga shaqeeyay waxayna ugu magac dareen inuu ahaa walaaleeye badhasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan maantana waxayna laga bedelayaa gudoomiye aynu ku suntan nabadda iyo wanaagga iyo sida waqti dheer ugu bixiyay dadkuna badanaaba wax lagu xusuustaa qof walba aynu reer ceergaaba haddaynu nahay ama reer Sanaagba aynu maanta aad iyo aad aynu uga naxnay bedelkii gudoomiyaheenii batay bal kuma naafaco iyo taraqaliitaay in raga wax ku tara marka toog galeedahay tiir bir Allah ka dhigo taagan wali ninka ragi meesha uu joogo wuxuu la tagaabuu la joogaa waynu sii sagooteena waxaanu ku sii sagooteena qalbi furan ducaynu ku sii sagooteena anagu waxaanu nahay ragii dhalinyarada ahayd nabadgelyada ka shaqeyn jirnay badhasaabkaasi intii uu joogay injineerku si wanaagsan oo hufan leh ayuu noola shaqeeyay nabadgelyadana haway runtii haddaan badhasaabka iyo maayirka iyo laamaha ammaanka laga wada shaqeeyay dhalinyaradu aanay isku xidhneen badhasaabada hore lama shaqeyn jirino lambarka wada cid waxa laga qaban jiray shakhsiyaad gaar runtii waxa farxad inoo ah inaynu inagu reer Sanaaga aynu xafladaynu ceergaaba ku soo qabanay inagu reer Sanaaga oo runtii aad qurux badnayd oo galbiska aan ilaa hadda la daba socono oo anaga halka idinku nimi inay reer Ceelifeen mid la mid halka ku diyaariyeen marka gudoomiye adigana intaas maanta farxad ku ay dadkaaga ku hareero joogaan badhasaabkeenii hore ee aynu halkan ka sii sagootiyayno soo dhaweyntan Yasmiina ka dhawaajisay inaan aynu u fadhino waxaan anigu jeclaan lahaa sagooti aynu maanta sii sagootino wallahi waxa ka wanaagsanayd inagoo maanta soo dhaweynay waxaanu sii sagootiyeynaa badhasaabkeenii ku sontanaa nabadgelyada gobolka Sanaag waxaan oran karaa waa iftiin bixiyihii nabadgelyada gobolka Sanaag badhasaabkeenii hore aynu sii sagootiyeyna maanta waa badhasaabku wuxuu ahaa dabdamis in badan intii aanu joognaba wuxuu noola shaqeynayay si hagar la'aan isagoo gelinka horena halkan imanayay gelinka dambena Ceerigaaba tagayo kolba dhinac hordaayay waa badhasaabkaan maalin u lansan waxaanu maanta sii sagootiyeynaa badhasaabkii hore gobolka Sanaag run ahaantii badhasaabkii si wacan u wanaagsan buu noola soo shaqeeyay intaan uu inala joogay oo uu ku shaqeeyay sida horeba loo sheegay odaytinimo dawladnimo salaadiinimo iyo aqalnimada wax badan oo uu ka qabtay gobolka Sanaag iyo degmada Ceelifeen injineer Axmed Cismaan Xasan oo ah badhasaabka hadda ka bedelay sida rag sheegay wuxuu ahaa dadku hore sheegeen badhasaab ku suntan nabadda bil xaqiiqiyan oo ah hormuudka nabadda ee gobol Sanaag gaar ahaan degmada Ceelifeen waxaanu sii sagooteynaa badhasaabkii gobolka Sanaag Axmed Cismaan oo ahaa runtii aanu waan xasuusto badhasaab ku suntan nabadgelyada iyo hawlihii faraha badnaa ee uu soo qabtay waxaan leenahay jazaakallahu khayran ilaahay kugu daro miisaanka xasanaadka intii aad qabatay aakhiro iyo ifkaba waad heli doontaa waxa marxaati badan halkan ka dhacay in gudoomiyaha gobolku sidoo soo shaqeeyay muddada xilka hayay waxa marxaatiga u furay dhammaan dadweynaha reer Ceelifeen waayeelka iyo waxgaradka iyo xildhibaanada golaha deegaanka runtii waa marxaati wanaagsan waxaan oran lahaa maanta aakhirana marxaatigaas oo kale ku dhacay insha Allah ku sii sagootino injineer Axmed Cismaan Xasan oo sida la sheegay ama muuqata ama qof kasta oo joogay deegaankan uu garanayo oo aan loo faahfaahinayn waxa uu ka qabtay iyo hoolada iyo nasiibka iyo habeenka uu la yimi insha Allah waxaan leenahay la noqon kaaga kelmadda kaliya aan oranayna waxa weeye maanta waa duco waxaan ugu duceynaynaa insha Allah calooshaadu waxay jeceshahay san ilaahay ha ku siiyo gudoomiyaha waxaynu leenahay waxa maanta uu halkan runtii kelmadaynu ku oran karnaa waa duco waxaynu leenahay ilaahay maskabka mid ka sareeyo ka khayr badan Allah ku dhiibo sidoo kale waxa weeyaan qofku markuu mas'uuliyad qabto ee mas'uuliyadiisa si hufan oo hagar la uga soo baxo waxa uu kayd u yahay qaranka maanta ma aha Axmed runtii inuu qaranka sidaa kaga tagayo anigu ma aaminsani waayo kaydka qaranku ku jira
waxaan hambalyaynayaa oo sii sagootiyaya gudoomiyahayga gobolka Axmed Cismaan Xasan waxaan leenahay gudoomiye ducadaas ilaa Ceerigaabo ilaa degmada Ceelafweyn ay islu ka gudub taageen ummadda gobolka Sanaag ku nool ilaa Ceerigaabo ilaa Ceelafweyn Allah ku aqbalo oo meel khayr qabta iyo meel ka fiican Allah kugu beego bulshada degmada Ceelafweyn aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dareenka ay u muujiyeen gudoomiyahooda gobolka inay og yihiin rag iyo haweenba inuu waqti badan geliyay inay bulshada degmada Ceelafweyn ku nooli amniga ay markuu yimid gobolka ay haysatay amni ka sii xoog badan ama ka tayo badan ama ka salbaaran inay degmada Ceelafweyn hesho waqti badan inuu geliyay waa ogtiin idinkuna waa ogsitiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa muddadii aynu wada joognay sidii qiimaha lahayd sharafta lahayd ee aynu wada shaqaynay waxaan leeyahay runtii ma ilaawi doono reer Ceelafweyn wanaag baan ku ilaawi doon haddii bariga hore loo jiray ilowshuuma xagga colaadda iyo waxba la lahaa anu wanaagiinaanan ilooweyn sharafta iyo karaamada aad leedihiin ma ilaaway runtii waxaan iloobaynin maxaan ku radaa maamulkii Ceelafweyn iyo hooyooyinkii halkaa gurigii intaan deganay saacad walba heeganka noo ah runtii ma ilaawi doono waayo haddaynaan garabka haysan annaguna ma joognayn oo shaqo ma qaban kareen وعدل جامع محمد لانت عودك بري أفريقيا دقمة Ceelafweyn